inkastoo ay aragoodii siyaabo kala duwan ku waayeen oo aanay indhaha waxba ka arkayn waqtigan waxay haatan qabtaan shaqooyin adag oo aan badi dadka caadiga ay qaban karin. halkan sidaad arkaysan waa class oo ay ku dhiganayaan dadkii aragga naafada. waxaan doonaynaa inaan isku dayno inaan wax ka ogaano dadkan sida wax u bartaan. Saadiyo aragga naafaka waxaan la wadaagi doonaa agabka wax qorista ee ay u baahan tahay, balse muxuu xambaarsan yahay nuxurka qoraalkeedu. maadaama muuqadan bareerkaan noqon waxba kama garanayo waxaan doonayaa markaa waxaan aragtay nabadgelyo akhriyo. farxaana waxaan halkan kugu qoray fariin aan u qoray adiga iyo dadka kale ee aan aragga naafada ka ahayn inay fahmaan. waa maalin qurux badan laakiin ma arkayo. waa dad reer Somaliland oo aan indhalaanta ku soo dhalan balse siyaabo kala duwan aragoodii ku waayay. 9 jir anigoo ah ayaa wax ugu dhacay xanuunka Soomaalidu taqaano qorgooyaha. marka ilaahay amarkii xanuunkaas ayaa sabab u ahaa in aragtidu ay lunto. anigoo yar waxa igu dhacay okoola marka wallahi muddo dheer ayaan sidan ahaa. farax ayaa sabab u ahaa shilka aan ku waayay aragga gacmaha iyo indhaha. waxaan doonayaa bal inaan wax idinka fahansiiyo maxay waxbarashadu qofku markuu aragga ka naafay yahay ee u soo kordhinaysaa. iminka waad aragtay waxbaad baranaysaan class baad ku jirtaan. maxay tahay faa'iidada ugu weyn ee waxbarashadu idin leedahay? waxbarashadu waxay noo tahay indho. waxaan ognahay waxbarashadu inay tahay bayska nolosha qofku uu ka soo bilaabo amba salaanka uu jaranjarta nolosha ka fuulo. qofkan aan waxba baran ee maaragtay ma arag la'aan oo arag la'aan isla ognahay bulshada inta badan ma jaan qaadi karo waqtigeena kala joogo. qofka aragga sidoo kale ka aan wax baran oo saasoo kale ka wax bartay laakiin heer kasta oo bulshada maaragtay ay gaari karaa la jaan qaadi karaa bulshada qaybaheeda kala duwan. dadkan aragga naafada ka ah haddaan qofka waxba la barin waxay ku keenaysaa caqabad aad u weyn oo qofku wuxuu noqonayaa qof meel walba ka xidhan. laakiin hadduu wax barto aragti la'aantii kuma keenayso inuu shaqaysan waayo. qofka bini'aadamkii qalbiga horta muhiimadda wax ka arka qalbigana waxa iftiimiya aqoonta. ilaa waxbarasho la'aanta ayuunbaa ahayd caqabadii ugu weyneed aniga 6 sannadood ugu horreeyay nolosha. markii aad waxbarashada bilowday waxbarashadu sidee noloshaada uga bedeshay? waxaan oran karaa waxbarashadu dee waxbay ahayd laba indhayo bay ahayd laba arag bay ahayd. araggii indhaha ee markaa aanan qabin wax badan runtii nolosheeda way ka bedeshay baan oran karaa. waxaan ka hawlgalaa oo ka shaqeeyo wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda idaacadda radio Hargeysa. waxaan ahay producer program amba barnaamij soo saare. alxamdulillah runtii ilaahay baa mahad leh in maxaan ku dhahdaa aan runtii maanta anigu noloshayda aan wada u shaqaysanayo oo aanan cid bini'aadam oo kale aanan ku tiirsanan ilaahay mooyaane. وأنا وأنا قاعد أنتظر كل صبح أبو أبدي حاصل وأنا هاي مقالة هرقيسة ديكين. haddana sidaas oo ay tahay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ahi nolosha horumar la yaab leh ayay waqtigan ka sameynayaan kadib markii ay fursad u heleen waxbarashadii ku habboonayd. sida aniga iyo dad kale oo daawanaya ay la yaabi doonaan waanan imika la yaabanahay adigoo araggii intii waxba kama arkaysid haddana kombiyuutarkii baad isticmaalaysaa oo adiga sidii qof caadi oo kale u isticmaalaysaa. sidaad u isticmaashaa bal si yar oo kooban ugu sharax. alxamdulillah horta niyow wax walba horta ilaahay baa bixiya. marka bahalkan runtii waxaan u isticmaalaa sida uu qof kasta oo aragiisa qaba ma caadi maaragtay aqoonta ha kala duwanaato heerka dadku ka taagan yihiin maaragtay qof bayn ka gaadhay. haddana sida caadi ay dhalinyarada maaragtay waqtiga joogtaa u isticmaasho si lamada u isticmaalo waxa yahay kaga duwanay malaha. hawl kasta oo 190 qofka arag qaba ku qaban karo anaba ku qaban karaa sanad misan heeb maaragtay aan samayn karo insha Allah. maxaad imika mawlid wada waqti xaadir hadda barnaamijkan gacanta ku haya. okay barnaamijkan khaasatan adabkii ku jira yani halkii codka lagu jirjiray. okay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنه ونكسر دقيستيال ميل كستا وعدكي بيدي سوغاري كل سودو ده برنامج سوغانات كي كي مجري ربطة ورورنتا دقنا كي سوغارتا برنامج كنا مركا وبحيا مياه ها بحيا صور كان يوم برنامج كنا كبحيا
okay iminka waxaan halka ku arkaya waa Adobe Premiere waliba Adobe Audio Edition run ahaantii Adobe Audio Edition aad buu hawl badan yahay marka editing-ka lagu sameeyo waa waxa aad hawl badan barnaamijkan iminka codka jarjarayso ee duuniya balinaad bal codka jarto ha iminka saaran on baydaal ku sareysan joognaa codkan farxaano waxaan u baahanahay bismillahir rahmanir rahiim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت هنا نجلس كشرابين وبحنا. هي. أنت هاسو كنا كشرابين مركب وبحنا. كانوا الصباح رأي حلقة يوضوين بالك هاي استعمالك نفسه. كودي أنا واحد استعمال ألفا. الصباح رأي. نادي كي منشك نادي. بله صور. صارت واصل. صور. صارت. أوكي. والله تعرف ما تيجي وأحس. بودكاست ولا نكمل أول مرة. أنت ما صار لها إلا تمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكاون وضع حرق اليوم دركتها. وانكسر يا سيدي. waxaan doonayaa programka halka ku jira bal inaad produce karayso oo aad soo saarto export karayso هاي اللي تقول بان لا مركب برام شو دنيا وسفرين. فايل بان اللي دركتها. سيف أس بنتية. سيف أس بنتية ساسانويا. فايل من بنتية سادركتها. ساسانويا. magacabaan u bixinayaa tusaale ahaan bal farxaan boob ka wadaagta sidaan leeyahay waxaan dhigaa saasaan leeyahay qalin soo folder la yiraahdo aan baatain ka bulsho ka saabano leeyahay dhig saasaan leeyahay okay nafsa saada weyn yaala Okay. Alt F4, Calensur. Okay. Kan, kita nak hantar yang hoin. Berapa sekian itu nak? Okay. Calensur. Berapa sekian itu nak? Farham benar hidup itu nak? Okay. Akhirnya nata. Wakan. بسم الله الرحمن الرحيم. aad iyo aad baad mahadsan tahay thank you barnaamijka waad soo saartay aad iyo aad baad mahadsan tahay balse su'aasha isweydiinta mudani waxay tahay dadka aragga naafada ka ahi siday u maareeyaan shaqada guriga dhexdiisa si aan arrinta u fahanno oo aragga naafo ka ah waxay isku dayaysaa gurigan koodii ahayn inay shaah iyo cunto ku diyaariso waxaana ugu dambeyntii hooda ku guuleysatay karinta shaah iyo cunto heerkeedu sareeyo duruufo badan ayaa ku gadaaman dadka aragga naafada ka ah waqtigan halka xuquuqdii dastuuriga ahayd ee ay gaarka u lahaayeenna gebi ahaanba meesha ka baxday waxaan ahay muwaadinad reer Soomaaliland oo cashuur bixiye ah dastuurka Soomaaliland wuxuu ii damaanad qaaday inaan helo dhammaan xuquuqaha aasaasiga haba yaraatee wax xuquuqaha aasaasiga oo helaan ma jirto caqabadaha ugu badan ee noloshayda waxbarashada oo goobaha waxbarashada oo aan inta badan jirin xagga waxbarashada caqabada ugu weyn waa halkaas waxyaalaha aan xaq ugu leeyahay dastuurka dawladda wajahna waxa kamid ah in aan helo sida bulshada caadiga ah adeegyada aasaasiga ah ee bulshada qaybaheeda kala helaan tusaale ahaan inta dugsi ee wadankeena ka furan dugsiyada waa 200 ka bilyan 300 afka ka galaan dugsiyada sare sidoo kale jaamacaduhu sidoo kale waxa la yiraahdaa waxa loo sameeyaa adeegyada ku wajahan dadka aragga qaba marka wax qorshe ah oo ay ku soo darsatay ilaa iyo hadda inta xukuumaddu ay jirtay ama filayeen in kadan ugu meel yaalo miiska u saaran oo la taaban karo oo dadka aragga ka khuseeyo waxbarashada qaybaheeda kala duwan hadday qalabay noqotay hadday dugsiyada noqotay hadday technical kale ilaa macallimiinta adeegyada kale ay noqotaba ma jiraan markaas waxyaalaha xuquuqiyaadkan aad u tabina taas ka mid ah dad tiro yar oo aragga naafada ayaa fursad u helay waxbarashada halka dad inta ka badanna aan waqtigan suuragal u ahayn inay waxbarasho helaan kadib markii dugsiga indhoolayaashu xidhmay mana jirto ilaa ay haatan rajo laga qabo in dib loo furo marka laga yimaado rajada aan abuuri karno oo ah mashruuca dhismaha iyo dib u hawlgelinta dugsiga indhoolayaasha oo qiyaastii ku kacaya lacag dhan $150,000 Mareykanka mustaqbalka waxaan rabaa inaan noqdo gabadh journalist ah oo laga yaqaan guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto waxa journalist inaan noqdo iga caawinaya inaan noqdo qof akademi oo wax bartay naafanimadu waa wax qof kasta ku soo biiri karo marka waxaan leenahay inaad nagala qayb qaadanayaan doonaa dugsiga si aan dib u furin iskuulku wax badan buu nolosha dadka disability-ga ama dadka waliba aragga ka naafada ka bedelaya noloshooda
ama shaqo ha noqoto ama waxbarasho ahaan iyo aqoon ha noqoto waan hubaa xataa imaan anigii laftarkaygu ka caawin karo ama aan ka dhigi karo dib macallin uga noqon karo qaar badan oo kalena macallimiin bay ka noqon karaan shaqo ka heli karaan shaqo abuur bay noqonaysaa jiil fara badan oo kale oo iyaguna weli fursad helin waxaan rajaynayaa iyaguna inay guryaha ka soo baxayaan farxaan oo adeerkasa inaan imanka dadaalayo waxaana doonayaa inaan noqdo doctora dadkayga Soomaaliland waxaan ka rajaynayaa inay garab qabtaan haddaba haddii uu guuleysto mashruucani in ka badan 500 oo qof oo aragga naafo ka ayaa heli doona fursado waxbarasho oo u horseeda shaqooyin iyo horumar nololeed haddaba wixii taa kula amaagaba aad kaga qaybgelayso mashruuca dhismaha dugsiga indhoolayaasha uga hagaaji ururka indhoolayaasha Somaliland oo ku hawlan dhismaha iyo dib u hawlgelinta dugsigan akoonada shaashada kaaga muuqanaya